شيخ الأكابر شمس له فول لها فنعم من عدك أسماه في المهدي شيخ الهدى أملي الله xuska iyo xusuusta allah u naxariistay sheekhii weynaa caarifka caabidka ahaa barakadii zamankan aanu joogno ee sheekh Uthman sheekh Umar sheekh Daawud Culus oo caan ku ah sheekh Uthman Xidig ayaa maanta lagu qabtay halkan oo markaska weyn ee markas nuur oo gacanta ku hayo caalimka mudariska ah ee sheekh Cabdisalaan sheekh Xasan sheekh Cabdirasaaq qaar ka mid ah culimada waaweyn ee ahlus sunna wal jamaa uu ka mid yahay sheekh Cabdifataax sheekh Abuukar sheekh Maxamed sheekh Daawud Culus oo ah hogaamiyaha jamaacada ayaa ka soo qayb galay kulankaas qiimaha badnaa الله فحبه تعظيم هو واجب فضوبا ودوبا لما وغرا على من أتى qaar ka mid ah culimada ayaa halkaas waxay ka soo jeediyeen kalimaad qiimo badan oo isugu jira taariikh nololeedka sheekhii weynaa ee Sheekh Uthman Xidig iyo waxyaabihii lagu xasuusta sheekha ruux xaasid ah oo inkiraya tajaahulan liajli tajaahulin isjahli garayn ogaan isdhaafin iyo diidid iyo dafirid darteed uma garanaysaa inkiraya qur-aanka wahwa caynul xaadiqi lfahim haba la yaabin buuri waayo oo mushkilad baa haysato oo qad tunkiru lcaynu daw'a shamsi min ramadin wa yunkiru lmaa'u طacma almaa'i min saqamin ishu waxaa la arkaa inay diiddo ay dafirto iftiinka cadceedda oo ay tidhaahdo cadceedi ma jirto ama cadceedi ma soo bixin ama iftiin male sababtuna waxay tahay xanuun bay ishu qabtaa bakooray qabtaa afkuna waxa suuragala inuu macaanka biyaha inkir uu yidhaahdo biyahani qadhaadha dhanaana see waaye sababtuna ma aha inay biyuhu qadhaadh yihiin biyuhu waa macaano ummadda kale ee carabka iyo afku ay u fayow yihiin waa ay macaansanayaane laakiin kan baa xanuunsanaya dhadhankii baa ka guuray koronaa ku dhacay hadduu korona ku dhacay mu wax dhadhamini ma dhadhaminayo urtii iyo dhadhankii baa ka guurtay wey waa sibtamiskii calaamadii corona lagu garan markaasuu ku leeyahay ma macaana kanna wuu xanuunsanayaayo indhihii bay bakoora kaga dhaceenoo kaga dhacdayoo markaasaa wuxuu leeyahay cadceeddii ma jirto waxaa la leeyahay sheekhow haddii aad adigu wax arki weyday dadka wax arkaaya ka dambe dadka wax arkaaya warso haddaad adigu xanuunsanayso ood caqliga ka bugto ama qalbiga ka bugto dadka fayow ee ilaahay laabta u saafi yeelay garaadkana u saafi yeelay warso oo ka dambe ha isqaadqaadin qadarkaaga ha dhaafin nin dadaal badanna buu ahaa waad aragteen muuqaalkiisa laakiin cindahu himma caaliya ayaa ka guuxayso casiima ayuu lahaa waxaan maqlay isagoo faleebo ku socoto haddana kitaabkii uu qorayo ta'liifkii uu wado markaasaa lagu yidhi sheekh ma iskana satidoo faleebaa kugu socotee intii faleebada kaaga dhammaanaysa ma iska sugtid markaasuu yidhi faleebada shaqadeedii ha wadato anigana shaqadeedii ayaan wadanaa bal fiiri cindahu himma caaliya ayaa agtiisa taalay calaa qadri ahli alcasmi ta'ti alcazaa'imu wa ta'tii calaa qadri alkiraami almakaarimu وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم قفك ننك وين مركو وين يهي إلهي باوينه وحير أكتيس وحير إليهن قفك يرنا أكتيس وحوين إلى نقانا يان مركة وحير هوينين وحوين ويني بس لا قدرك عزيمة أذيك أكتا هذه أي تالو ayaa intay la eg tahay go'aan aad gaari kartaa waxna aad soo saari kartaa haddaad tiraahdo cirkaasaan gaaraya meel sare ayaan gaaraya waad gaaraysaa ilaahina aad barisid tabaaraka wa tacaala si walba u xanuunsan yahay haddana wuxuu ahaa nin casiimadiisa wata ta'liifkiisa wata qoraalkiisa wata wardigiisa wata mar walba khayr iyo wanaag ku mashquulsanaa
عليه سحائب الرحمة. الشيخ عثمان كان مفكرا وعد لو ذاك أنا أنت أركب في أرض الصومال سنكجرين ولي بفكر كيسي يهم جيسنا وهي علماء دهان رب همة أحيت أمة رب همة أحيت أمة شيخ همجي أو دينت أو جليي وماذا نوليسي وحي نوليس الصومالي ودن ضد علامها كصوب حي أنت هذا النول إني وحبتك برتربت أما إني وحبرتربتاهي وحي كسعته همجي ينمتك الشيخ أو أبو هريرة رحمه الله تعالى وحومرك الشيخ كسر هيا نين منهاج يا إرشاد يا أمهاتك أخريي أي إسكتك وكسر يا شيخ أنت سنوى أخري محوك الله ريبي مشروع ومد أي كبت بادنا الشيخ والريبي عد كستنا وحالي تاريخ ذو وحي قرتا أصحاب المشاريع وقاذا عد كستدكو أرتين كتب التاريخ كتالا أما أئمة فراها بدنه أن كتابة كو أرغني لما أنتو وحيهن أصحاب المشاريع بيهاين حل وحي صابحين دينتا وحكجران جابكي إيا نقصي كجري مركب بوحيين سيداس درادي ذا مركب مقعود مركب استوى نوليهي وحيدان علماء كفي كرتا دينت أدجسا أساليب بعد قودا مئات من السنين دينتو أي كسي جري كرتو بني آدم كوحي كلميدهن لمشدة أو أجساد أهان ويقوريان أو ويدمانيان لكن تظل أرواحهم في قلوب الناس مهما كان الزمن هدي شن بقول سنة أي صوركت هدي سدح بقول سنة أي صوركت هدي كون سنة صوركت قفك سوى حي في قلوب الناس إلهي با مهد اسكال سبحانه وتعالى قدري إن مانتا ماشان سوء إيمانه مجلس وناكسن وخير بدن وصالحين تي لو حصايو oo naxariistu ku soo dagayso sida salafku sheegeen ayaan joognaa wujuh khayr badan oo طلاب العلم annaga naga wanaagsan malaa'ikta ilaahay ay protocol siiso salaan u saarto garabka u laalaadiso ayaan hor fadhinaa minbarkan soo fariisadkiisa waxaan u arkaa inuu yahay nicmo rabbaani إلهي بانوغا مهد علينا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يراهدو شيخ أيا كرامديس إلهي نو أنفعي شيخ مارت دعاديس إلهي نو أقبلي waxa weeye inaan anagu ilaahay qeyrkiisa caabudno ma aha waxa weeye waa in ilaahay aan ku xirannahay adoomana u nahay inuu wax anfaco wax duro kaligiisna aanu aaminsanahay waxa kalena ay asbaab yihiin waa marka ninka dhahaya sheekhay caabudaan ama qabrigay caabudaan oo tawassulkii iyo maaragtay sheekha lagu tawassuliyo awliyada ambiyada lagu tawassulhay asmaada ilaahay lagu tawassulhay ka dhigahaya wax ilaahay qeyrkiisa la caabudayo haduu ruu sheegayo markuu jirado una dhaqtar aadi haduu ruu sheego markuu jirado yuusan dhaqtar aadi maxay dhaqtarku ma ilaahaya daawadu ma ilaahaya maxaa ka doonay ma iska dhaaftay ilaahu jirada adaa keentay haddaad rabto qaad haddaad rabtana qaad ma yiraahdo waliba sidaas si fiican haduu samayn karo يوم ندعو كل أناس بإمامهم مركا لليه أيضا ربنا الله لليه هون شاء عثمان دبجوجنه سنة كدين تان أمرنا هي النبي محمد عليه الصلاة والسلام أن كجاري إنه محشر جماعة النبي الله نقدر عليه الصلاة والسلام ساسا أدعو إن الله أقبله حرت علمك الله أسهله عرفان الله سيو شيخين وحكود عجرة وقبضنا هم عالية هاي هم عالية الله نسيو هم عالية الله نسيو هم عالية الله نسيو فكن رجلا رجله في الثراء وهامة همته في الثريا ساسو شيخ حتى الهجرة فكن رجلا رجله في الثراء ننعكتي سريس كدولك أي تالرنقو وهامة همته همدي سمد حيضنا في الثريا أروره لحها أو جوجو معناها هكسيجا ومال دو يونقن وهذا أكتهين علمك دبو كبعي حفظ إيو وقت بحي إيو مشاكل على النولي هاي لكن وعباده ووحفي عن
حرت أي مشايخ له هوصا سوء سنتنا وأمهد علينا إلهنا وحن كرجينا هاوشي جهدي شيخ ماشي أو دقائني كسي سعته أنا لديبا قرينين سياسا رجينا dadkii uu ka tagay oo xilka uga tagayna ay xil isu saaraan oo hawsha sheekhi uu wadi jiray meeshii ay ka sii anbaqaadaan insha Allah taala sidaasaan rajaynaynaa ummadana ilaahay inuu mideeyo dhibaatooyinka ilaahay uu bixiyo mixanta nagu raagtana ilaahay inuu naga qaado sidaasaan rajaynaynaa caalamka islaamkana sidoo kale meel walba muslimiintu waa ku dulman yihiin dhibaata ku haysata ilaahay waxaan ka rajaynaynaa dhibkaas uu ka qaado intaas ayaa majliska nagu soo gabagaboobay ugu dambeyntii waxaa kulanka soo gabagabeeyey sheekh cabdifataax sheekh abuukar sheekh maxamed sheekh daawud culisow isagoo u duceeyey dhammaan dadkii ka soo qayb galay munaasabadaasi maqbuul allah ka dhigo isku imaadka allah nagu xoreeyo isku imaadka allah nagu xoreeyo isku imaadka allah nagu xoreeyo sheekhayna raxmad waasac allah siiyo raxmad waasac allah siiyo qabrigiisa allah nuuriyo qabrigiisa allah waasiciyo beer jannaad allah uga dhigo beeraha janna bar kamid allah uga dhigo wuxuu inooga tegay allah noo barakeeyo amdaadiis ilaahay nagama gooyo amdaadiis ilaahay nagama gooyo xerta allah barakeeyo caalimiin caabidiin allah ka dhigo xerta allah barakeeyo caalimiin caabidiin allah ka dhigo wixii loo sheegay xarafkii loo xabkada noor allah la geliyo hanuun hidaaya xerta allah siiyo tamkiin taama allah siiyo hanuun hidaaya allah siiyo tamkiin taama xerta allah siiyo mashaayikhda wax akhrinaysa madrasiintana adduun akhira taama allah siiyo awlaadooda mubaarag allah ka dhigo deeqooda waasac allah ka dhigo irsaaqadooda xalal waasac allah ka dhigo awlaadooda mubaarag allah ka dhigo waxay haystaan khayr allah u adkeeyo waxay ka maqan allah ugu daro tan iyo markii uu geeriyooday sheekhii weynaa ee sheekh Cuthmaan Xidig waxaa daafaha dunida ka dhacayay isku imaatinno waaweyn oo sheekha loogu ducaynayo dhinaca kalena looga sheekeynayo doorkii lama ilaawaanka ah ee uu ka soo qaatay fidinta diinta islaamka ma jeceshahay muddo kooban inaad ku barato barashada quraanka kariimka iyo hingaada carabiga ma doonaysaa inaad ku barato shariicada islaamka qaybaheeda kala duwan hab fudud oo casri ah waxaa intaas diyaar kula ah adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada macadka barashada quraanka kariimka ah iyo culuumta sharciga ee Nuurul Huda ka faa'iideyso oo ka mid noqo bahda macadka Nuurul Huda kala xiriir wixii faahfaahin ah ciwaanada shaashada idinkaga muuqda